baarlamanku iyo deegaanku haddii dimuqraadiyaddu aanay noqonin wax la isbedbedelo 5 sanadood bay dimuqraadiyadda qofka maskaxdiisu xamili kartaa baa la yidhi madaxweynaha la doortay ama ninka xildhibaanka la doortay inuu xamilo 5taa wixii ka badan haddii aan la isku raacin oo aan markaa loogu celinin dimuqraadiyaddu ma qaadi karto maskaxda bani aadamka aan qaadi karin marka mahmaa yar baan soo qaadanayaa nin baa beri dabeecad xumaayoo turub maqaaxi yaroo lagu ciyaari jiray imaaraadka unu joognay ayaa habeen walba uu dagaalamaa habeenkii dambe miiskii looga kala tago wax la fadhiistayba uu waayey keligii baa turubkii la hordhigay inamadii kalena miisaskii kale iska sharaxdeen oo nin waliba miis baa afar iyo 6 oo dhallinyaradii ku kaftantay ninkii baa markii dambe nisaaweygu markaasuu yidhi alele waa looga kala tegey marka nimanka baarlamanka ah ee 15 sanadood fadhiya dimuqraadiyaddii maskaxda reer Soomaaliland ma xamilaysay ee shacabku oo way dhaaftay halkii dimuqraadiyaddu xamilaysay kali talis iyo waxay kale gelaysaa marka deegaankuna waa la mid doorashooyinka habsaamayaana ma yeelayaan shakhsi wax qolana wax ma yeelayaan xusbina wax ma yeelayaan wadanka oo dhan bay wax yeelayaan iyo populationka wadanka marka qolada baarlamanka ah iyo deegaanka waxaan leeyahay wariyaan kuraasada aad ku fadhidaan la idinka tagina xagga dimuqraadiyadda isku badiya مثلا إمك لبضن كوميشنير عشري سوء عليه أنا كله هدي أتكسر قاعدة وحويان وحي هيدني أوت كوان سحيان وهي أنت سو لبص النضاد صدح سنوات بين إمك سنة كسر حد بين دورش لا بعلينا هاي وحنا نوادي يا دقوم ما حدنا غينا صدح ده قدومي حسبي ومدحوينا سومال لان كميدي هاي وكل شيء يجوا إلى دورش دي سدي موقتي أي كجو أنت هاي oo iyagu halka meel isla dhigay meeshii cidda hor taagan marka in laga duwaa oo baarlamanku koow ka yahay baarlamanka maanta Soomaaliland jira koow ka yahay ayaa iyaduna daruuriya iyagana waxaan ugu baaqaynaa sida dadweynaha Soomaaliland doonayo in ay yeelaan oo ay hirgeliyaan doorashada sida ay isugu raaceen saddexdii xusbi qaran gudoomiyayaashoodii waa inay iyaguna ku raacaan afkaasina waa afka murashaxiinta Soomaaliland oo dhan حتى gobolka Mareed Sheekh maaha waa Soomaaliland oo dhan weeyii marka inta halka taagani saddexda xusbina way wada qabaan fikradda shacabka Soomaaliland uu qabaa marka haddii kaligood noqdaan iyaga looga tagi kuraasada oo dadkana moral xumo iyo balaayo kala ku dhici doonto wax kala dhici doona ilaahay way nagu keeninay doorashada waxa way haddii doorasho la waayo jiritaankeeni ba halis kaliya doorashadana cidda hor taagan waxa weeye nimanka kuraasida fadhida ee qaadanaya mushahar aanay lahayn mushaharkii baarlamaankii labaad saddexaad mushaharkoodii bay qaadanayaan mushaharkooda waxaan ahayn oo buuqdaana ma jiro waxaan leeyahay adeerayaal mushaharaydan lahayn baa cunaysaano xaaraane oo arrintiina ku korinaysaane ka baxa meesha oo dalka habaabiinina xeerkii doorashada miiska soo dhiga haddii aad soo dhigi weydaan annagu waxaanu leenahay dadna taageersan dadkii berigii hore soo doortay inka idinma ogola miiskaan idinku keeni doonaa hadda ka kici weydaan waa dulmanayaasha doorashadu waxay rabaan in ka dhacdo dalka doorasho cidda diidanna waa la garanayaa maanta waxaan leenahay walaalayaal muddo fara badan baa fadhidan kuraasta maanta sidaynu hubno madaxweynuhu ma diidana xisaabtuna ma diidana waa la isla waafaqsan yahay muhiimadda jirta waxa weeye nimanka xildhibaanada ah ee kuraasta ku ragaaday ee gafanaha ku noqday ee gabaarey ku noqday waxa leeyahay corona kale ma jira Soomaaliland corona waxa ku ah nimanka baarlamaanka fadhiya walaalayaal corona nagala soo baxa ayaan leenahay walaalayaal oo naga daaya oo ummadana waxay doonaysaa inuu isbedel dalka ka dhaco hanaanka dimuqraadiyadeed iyo geedi socodkii doorashadu in si loogu talagalay u socoto ummadana rabtaa oo u helayeen waxa jirta rag 15 sanadood u taagnaa inay baarlamaanka Soomaaliland ka mid noqdaan ragga qaar waxa sheegay war dadkaygiiba oo waayo 15 sano ay sugayeen ayaanu kala daadanay ruuxan leeyl maadareeyal dalka hanaanka iyo geedi socodka dimuqraadiyaddu hayr gasho muddo fara badan waxa la lahaa madaxweynaha hor taagan maanta waxa muuqatay oo ummadda reer Soomaaliland u sheeganaa cid hor taagan inay baarlamaanka nimanka fadhiyada muddo dheer bay muran ku soo jirtay oo mar loo kordhiyo baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka oo ayaga laftigooda waqtigoodii u dheeraaday mar la kala qaado madaxtooyada iyo arintii muxuu ahaa baarlamaanka oo isa saarahayo haddana la ilaaha loo codayo la kala qaado marxalad dheer bay soo martay marxaladda ay soo martay marka la eego dimuqraadiyadda hanaankii ay u socotay
50 years marka la yiraahdo cid baa fadhiyeysa oo maalinba waji cusub bay keenayaan caqabad bay keenayaan cidda fadhida ayagoo legislative maxaa loo jeedaa qodobada sharci dejinta oo maalin walba ay shay dadka hor dhigaan ayaan darideeda leedahay arrinta aan taabanayo waxa weeye xogaal hoosaan u ah maalintii dhaweyto 2 nin baa loo gudbiyay iyadoo la heshiiyey ayaa la labada xubnood ansixiya si ay ugu biiraan 5 xubnood waxa dhacday inama ku jira gudaha oo ma oranayo waa hebel oo iskaranaya laakiin ayaa waxay leeyahay haddii uu na dhaafo haddayna dhaafaan annaga ayaan jirin waa la garanaya ayagoo iskaranayaan maya annagaan dad ahayn haddii ay labada na dhaafaan macnaheedu ma aha Faysal ku xumeeya Cabdiraxmaan ku xumeeya laakiin waxa ay doonayaan inay sii joogtaankoodu inuu sii raago marka taa diiwaangelinta si loo gabo waxaan idin leenahay ansixiya ilmaada reer muddo dheer baa fadhideen oo de waxa afka la galeysaan waa teeramkii afraad baa afka la galeysaan 5 sannadood shantii kala idin bilaabmay carruurtii aan dhasheen jaamacadaha ay ka baxayaan haddii dimuqraadiyadda la waayo maxaa ka dambeynaya baa dadka aqoonta la isweydiiyaan haddii hannaankana wax u socdaan la waayo de gacan baa la isula imanayaan oo fadhiya maysan anigu maalin horena waan igii sheegay waxaa iman doonta maalin laydka soo saaro haddii si nadiifa u ansixin weydaan dadka oo waddadeedii mari weydaan maalin baa iman doonta dhow in gacanta laydinkaga soo dhex qaban doono madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweyne adigana taariikhdaa kuu gasho inamadaasi marka aad hor dhigto mar labaad ee ay ansixiyaan haddii ilaahay khayr siiyo waan filaynaa inay ansixinayaane adigana mid baa kuu muhiima inaan marmarsiyo dambe dhicin taariikhdaa kuu gashay inaad maxkamadda u guddiso oo mudane daahir riyaalo kaahin aad ku dayato inaan saami qaybsi cusub iyo muran cusub gobolladu aanay bilaabin eed maxkamadda u gudbiso ood ku dhiirado siday taariikhdu kugu dhashay ujeeddadayda maanta si raggii horeba uga hadlay waxa weeye arrintii doorashada ee muddada dheer la sugayey ee hadba meel joogtay maanta stagekay taagantay waxa weeye in xogaagii khilaafa ay ku jiray xisbiyada axsaabta iyo xukuumadda iyo madaxweynaha alxamdulilah meel wanaagsan ay dhigeen halkaa ay dhigeen waxaanu leenahay ha laga dhaqaaqo oo ha loo dhaqaaqo si ugu qabsoominay doorasho waddanka insha allah madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biix cabdi iyo 3 xisbi qaran aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin oo waa uga mahad celinaynaa siday u soo afjareen khilaafkii u dhexeeyey ee muddada ragaadiyey hawshii doorashada ee inoo dhici lahayd waqtigan ka horreeya hadday maanta halkaa marayso waxaan leenahay 3 qodob marka koowaad waxaanu leenahay doorashadaasi ha qabsoonto madaxweyne iyo axsaaba guddoomiyaasha xisbiyada inkastay si fiican uga shaqaynayaan hadday meel wacan marinayaan waxaan leenahay ha qabsoonto oo halkaa ay soo gaadhsiiseen haraha uga socoto qodobka labaad waxaan leenahay weliba khaasatan madaxweyne halkan waxaa fadhiya 2 gole golaha guurtida iyo golaha baarlamaanka labada gole waxaynu ognahay inay labada goleba 2 golo qaran yihiin golaha guurtida wuxuu ahaa waqtigiisu 10 sano waxaanay fadhiyaan 30 sano golaha baarlamaanka 2005 baa la doortay waxay iyaguna muddo dhaaf yihiin 15 sano sidaa daraaddeed halkaa waxaa ka muuqata madaxweyne labadaa goleba inuu wakhtigoodii dhaafay mar labaad dhaafay mar saddexaad dhaafay maadaamay halkaa marayso iyaga labadaa gole odhan mayno waxqabta oo sidaa yeela sababtoo waxaynu ognoo aragnaa inay yihiin gole uun keliya golayaal ku fikiraa qalinkoodu uu qoro keliya wixii kordhinta la odhan jiray kordhin mar iyo 2 iyo 3 ba iyo 4 iyo 5 ba
waxay halkaa ku gaadhin kordhin iminkan waxay u fadhiyaan kordhin iyaga madaxweyne waxaan ku leenahay go'aan cad ka qaado adiga hay-addii waddanka u sarraysaa adigaa madaxweyne qalinkii haya annagu waxaan nahay muwaadiniin reer somalilanah oo murashaxiina oo muddo dheer sugaysay xaq waxaanu u leenay in nala doorto waxna dooranno sidaa maadaamay tahay iyaga ka sugi mayno labadaa gole inay wax noo dhammeeyaan adaanu madaxweyne ku leenahay wax qabo hawshaasi ha socoto haddii alla ka dhiga insha allah ujeeddadan meeshaan isugu imanay waxa weeyaan shacbiga jamhuuriyadda somalilan ku nool dibad iyo gudaba aan u sheegaynaa inaanu anagu diyaar nahay sidii ay doorasho waddankan ugu dhacdo aan u taagannahay oo aan ku taageersannahay go'aankii geesimino lahaa ee ay qaateen labada guddoomiye iyo madaxweynuhu labadii ninee sida bilaad sharciga ah lagu soo celiyey xeerkii ay qaadanayaan baarlamaanku waxay ahaayeen labada nin ay soo celiyeen ba sharciga ma ahayn waxaanan ka codsanaynaa in haddii alla yidhaahdo ay ilaaliyaan sharafta ummadda iyo simcaddooda maanta wakhti uma hadhin muddo badan bay fadhiyeen waxa weeyaan karaama seeg waddanka kaga tegina labada xubnood dib haddii loo soo celiyo waa in sida qiimo loo sharaf leh aad u gudataan oo sii daysaan haddii aanay doonayn kursigan inaad sii fadhidaan oo aad caddaysataan taana cid iska yeelaysaa ma jirto waxaan leenahay walaalayaal muddo fara badan baa fadhidan kuraasta maanta sidaynu hubno madaxweynuhu ma diidanaa axsaabtuna ma diidanaa waa la isla waafaqsan yahay muhiimadda jirta waxa weeye nimanka xildhibaanada ah ee kuraasta ku ragaaday ee gafanaha ku noqday ee gabaarray ku noqday waxaan leeyahay anugu karoono kale ma jira somalilan karoono waxa ku ah nimankaa baarlamaanka fadhiya walaalayaal karoonaha nagala soo baxa ayaan leenahay walaalayaal oo naga daaya oo ummaddana waxay doonaysaa inuu isbedel dalka ka dhaco hannaankii dimuqraadiyadeed iyo geedi socodkii doorashadu inay sidii loogu talagalay u socotay ummaddana rabtaa oo u heelayyihiin waxaa jirta rag 15 sannadood u taagnaa inay baarlamaanka somalilan ka mid noqdaan ragga qaar waxay sheegayaan war dadkaygiiba oon waayo 15 sano say sugayeen ayaanu kala daadannay war waxaan leeyahay maadareyaal dalka hannaanka iyo geedi socodka dimuqraadiyaddu hay hirgasho muddo fara badan waxaa la lahaa madaxweynaha hor taagan maanta waxaa muuqatay oo ummadda reer somalilan u sheegaynaa cidda hor taagan inay baarlamaanka nimanka fadhiyata muddo dheer bay muran ku soo jirtay oo mar loo kordhiyo baarlamanka iyo golayaasha deegaanka oo ayaga waqtigoodii u dheeraaday mar la kala qaado madaxtooyada iyo arrintii muxuu ahaa baarlamanka oo isa saar ahaydo haddana la ilaaha loo codayo ha la kala qaado marxalad dheer bay soo martay marxaladda ay soo martay marka la eego dimuqraadiyadda hannaankii ay u socotay 50 years marka la ilaaho cid baa fadhiyaysa oo maalinba weji cusub bay keenayaan caqabad bay keenayaan cidda fadhida ayagoo legislative maxaa loo jeeda qoladii sharci dejinta oo maalin walba ay shay dadka hor dhigaan ayaan daradeeda leedahay arrinta aan taabanaya waxa weeye xogaal hoosaan u ah maalintii dhaweyto 2 nin baa loo gudbiyey iyadoo la heshiiyey ayaa la yidhi labada xubnood ansixiya si ay ugu biiraan 5 xubnood waxa dhacday inama ku jira gudaha oo ma odhanayo waa hebel oo isgaranayaa laakiin ayaa waxay dhaheen haddii uuna dhaafo haddayna dhulkeena barwaqaayay obay haqaltaaga naga dhaafay obay tafaararuq naga dhaafay obay qolqolaada naga dhaafay obay naqdigiyo udubkeed obay dhaxalkeenu waa guul obay naqdigiyo udubkeed